kulanti wanaagsan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena xogta Shiine waxaana warbixin idinku soo gudbin doonaa mar kale warbixin aan ku fiirin doono diyaaradii ka degtay magaalada Kismaayo taasoo ay sheegeen Jubbaland inay soo iibsadeen haddaba raadraac lagu sameeyay diyaaradani ayaa waxaan idinku soo gudbin doonaa nambarka ay ka dawaan gashan tahay diyaaradani iyo waliba sida diyaaradan ay uga shaqeynayso dalka Kenya loogana lahaa Kenya inkastoo Jubbaland sheegtay in diyaaradan ay soo iibsadeen haddana waxa muuqata in diyaaradani ay u badan tahay in Kenya ay ugu deeqday in Jubbaland ay ku soo daabasho waftiyada kala duwan ee imaanaya calaamasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe dowladda Somaliya ayaa diyaaradan ka gudbisay dhankeeda dacwad ay sheegtay inay u gudbin doonto hay'adda duulista hawada inay ku xadgudubtay hawada Somaliya una ogolaatay diyaarad aan ka diwaan gashanayn Somaliya oo laga leeyahay dalka Kenya in amar la'aan ay ku kala bixiso gudaha Somaliya duulimaadyo gudaha haddaba warbixinteenan ayaan idinku faahfaahin doonaa warbixinteenan xogta Shiine garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee Kismaayo ayay waxay ka degtay diyaarad Jubbaland ay sheegtay in iyadu leedahay taasi oo sameyn doonto duulimaadyada gudaha iyo dibadda isla markaasina halkaas ku daabuli doonta wufuudda kala duwan ee ka qayb galaya calaamasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe diyaaradan ayaa xaqiijisay in Kenya oo ka duuleysa taageerada ay siinayso Jubbaland ay bixisay lacagta diyaaradan iyo waliba tasiilaadkeeda oo ay ku jiraan shidaalka diyaaradda ay Nairobi uga duushay Sabtidii iyadoona ka degtay magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland diyaaradan oo nooceeda lagu sheegay inuu yahay nambarka ay ku diwaan gashan tahay 5YJXJ Fokker F50 ayaa waxaa la sheegay in diyaaradan ay kasoo duushay magaalada Nairobi rakaabka ugu horeeyay ee diyaaradan oo soo qaata waxaa kamid ahaa madaxweynayaashii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo xildhibaano heer federaal kuwaas oo kasoo kicitmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kuwaas oo ka qayb galaya calaamasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe diyaaradan ayaa sida ka muuqata kamid ah diyaaradaha dowladda Kenya ay leedahay balse lama oga in diyaaradan ugu deeqday Kenya inay soo iibsadeen waxaase ah xaqiiqo in diyaaradani hore nambarkeedu uga diwaan gashanaa Kenya sida muuqata duulimaadyo hore oo diyaaradan ay sameysayna ay ka duushay Nairobi maxamed sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa si cad u shaaciyay in diyaaradan Jubbaland soo iibsatay ay jabisay amarkii ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ee ahaa in diyaaradaha aadaya Kismaayo inay soo maraan garoonka diyaaradaha aadan ee Muqdisho Soomaaliya ayaa dacwad ka gudbisay hay'adda duulista hawada ee caalamiga ee ku saabsan waxay ugu yeedhay in xadgudub ay ku tahay hawada Kenya kadib markii diyaarad laga sii daayay magaalada Nairobi inay si toos ah uga duusho magaalada Nairobi ayna ka degto magaalada Kismaayo halkii ay ahaan lahayd in duulimaadka ku teedsan Muqdisho ay ku horumarto sida qawaaniinta caalamiga ay dhigayaan mas'uuliyiinta hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliya ayaa xaqiijisay in maareeyaha hay'addu ay qaadi doonaan tallaabo ku dhana inay ka gudbiyaan dacwad ku saabsan duulimaadyada caalamiga ah inay Kenya ogolaaday diyaarad sidii siyaasiyiin madax banaan iyo mas'uuliyiin kale oo ka qayb galaya calaamasaarka Axmed Madoobe inay si toos ah uga duulaan magaalada Nairobi kana degaan magaalada Kismaayo taasoo ay sheegteen in xadgudub ku tahay duulista hawada Soomaaliya sida ku qoran qawaaniinta ay sameysay hay'adani bishii hore shirkadda diyaaradaha ee tagaya magaalada Kismaayo waa inay soo maraan magaalada Muqdisho raadraac lagu sameeyay sumadda diyaaradda ku qornayd ayaa lagu ogaaday in diyaaradda nooceedu ah Fokker 50 registration numberkeeduna oo ahaa 5YJXJ iyada oo ka diwaan gashan dalka Kenya waxayna ku shaqeysaa magaca shirkadda Juba Airways oo ah shirkad uu leeyahay ganacsade reer Kenya ah Juba Airways waxa iskale mid kamid ah xildhibaanada sida weyn u mucaaradsan dowladda madaxweyne Farmaajo oo lagu magacaabo Saciid Nuur Kriish kaas oo ku dhow madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba ganacsade kale oo lagu magacaabo Isaaq Somo oo saaxiib la ah madaxweynaha dalka Kenya ganacsadahan ayaa sidoo kale leh diyaaradda qaadka rakaabka keena Soomaaliya oo intooda badani ka diwaan gashan dalka Kenya waxaana muuqaal laga qaaday diyaaradda oo ku sugan garoonka diyaaradaha lagu ogaaday inay ahayd isla diyaaradii shilay ka degtay magaalada Kismaayo warar xogaal ayaa sheegay in diyaaradda hore u iibsadeen shirkadda Kenyatta laakiin dad ku dhow xildhibaanada ayaa u dooday inay soo iibsadeen dad ku dhow madaxweynaha Jubbaland oo ay lacagta bixiyeen
waxaa cad in diyaaraddan ay sii kordhisay khilaafaadka u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya iyadoo dowladda Kenya lagu eedeeyay in ay ku xadgudubtay hawada Soomaaliya markii ay u ogolaaday diyaaraddaasi inay ka degto magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland. diyaaradani ayaa waxa ay wadaa duulimaadyada ay doonayso inay ku daabusho waftiga ka qaybgalaya calaamasaarka madaxweynaha Jubbaland oo ay ka kala imaanayaan guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya. waxaa lagu wadaa sida la sheegay in diyaaradani ay u duusho maanta magaalada Garowe oo ay ka soo qaadi doonto wafti ka tirsan Puntland. talaabada dowladda Soomaaliya ay uga jawaabtay ayaa in ay dacwad u gudbin doonto hay'adda duulista hawada adduunka in ay ku xadgudubtay diyaaraddan hawada Soomaaliya iyo Kenya in ay ku xadgudubtay hawada Soomaaliya kadib markii uu ogolaaday diyaarad aan ka diiwaan gashanayn Soomaaliya in ay ka soo duusho Nairobi isla markaasina ay gudaha Soomaaliya duulimaadyo ay ku samayso. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo kuwa mucaaradka ayaa ku eedeynaya dowladda in ay u isticmaalayso hawada Soomaaliya qaabka hubka oo kale isla markaasina ay u adeegsanayso kuwa ka soo horjeeda inay cunaqabatayn ku saarto.